14 qof ayaa ku dhimatay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen kadib mawjado weeraro xooggan oo ay ciidamada Ruushka ku qaadeen magaalooyinka Kiev, Odessa iyo Dnipro. sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine, weeraradan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed, iyagoo xaqiijiyay in ilaa iyo hadda ay dhinteen 14 qof. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo galay sanadkiisii afraad ayaa weli sii xoogaysanaya, iyadoo labada dhinac ay isu weerarsanayaan weeraro culus iyo duqeymo joogto ah. Ruushka ayaa si joogto ah u fulinaya duqeymo cirka ah, isagoo gantaalaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ku garaacaya magaalooyinka Ukraine. Dhanka kale, Ukraine ayaa iyaduna weeraro ku qaada gudaha Ruushka, iyadoo beegsanaysa bartilmaameedyo iyo goobo muhiim ah si ay uga jawaabto weerarada kaga imaanaya dhinaca Ruushka. Weerarkii ugu horeeyay ayaa lagu qaaday magaalada dekedda leh ee Odessa kadib markii ay ku hubteen mawjado gantaale ah, waxaana ku dhintay 7 qof, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. Weerarka xigay ayaa ka dhacay caasimadda Kiev, kaasoo sababay dhimashada 4 qof oo uu ku jiro ilmo 12 sano jir ah, sida ay sheegtay hay'adda gurmadka degdega ah ee Ukraine. Weerarka saddexaad ayaa beegsaday magaalada Dnipro, waxaana ku dhintay 3 qof, sida uu sheegay madaxa maamulka gobolkaasi. Dhanka kale, Ukraine oo ka jawaabaysa weeraradan ayaa duqeymo ay u adeegsadeen diyaaradaha drones ku qaaday dekedda Tuapse ee gobolka Krasnodar, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Veniamin Kondratev. Weerar drone ah oo lagu qaaday dhismayaal la degan yahay oo ku yaala Tuapse ayaa sababay dhimashada 2 carruur ah oo da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 14 sano, ayuu yiri. Weeraradan isdaba joogga ah ayaa muujinaya in dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu galay marxalad culus, iyadoo labada dhinac ay si joogto ah u beegsanayaan magaalooyinka waaweyn iyo goobaha muhiimka ah. Guud ahaan, xaaladda dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa weli ah mid cakiran oo aan lahayn xal dhow, iyadoo labada dhinac ay muujinayaan adkaysi iyo inay ku dhiiranayaan sii wadida dagaalka.